waxaa maanta magaalada Garowe xarunta dawladda Puntland ka furmay kalfadhigii 13aad ee golaha deegaanka degmada Garowe kaas oo isugu yimaadeen xildhibaanada golaha deegaanka iyo waliba gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Garowe Cabdicasiis Nuur Cilmi kalfadhigan ayaa waxaa lagu soo bandhigay warbixin ka hadlaysa 6 bilood ee la soo dhaafo waxyaabihii qabsoomay dawladda hoose ee magaalada Garowe taas oo muujinaysa in waxyaalo badan laga qabtay arrimaha bilicda hagaajinta amniga caafimaadka nadaafadda iyo waliba fayadhowrka dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Garowe waxaa ka soo qayb galay taliyaha dhanka saxaafadda ee madaxweynaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi Xirse Cali Qarjab iyo marti sharaf kale oo ka mid ah dadka deegaanka kuwaas oo si toos ah u dhageysanayay warbixinta waxqabadka uu soo jeediyay Cabdicasiis Nuur Cilmi koor duqa degmada Garowe warbixin waxqabadkeennii 6 bilood oo soo dhaafay aan ugu hormaro 6 bilood oo ugu dambeysay oo u dhaxaysay Abriil iyo September 2012 waxyaalaha noo qabsoomay runtii aad u tiro badan yihiin mana soo koobi karno laakiin haddaan waxyaalo yar yar ka xusno furqaadida bilicda magaalada ilaalinta deegaanka waxyaalaha nooga hirgalay waxaa ka mid ah inaanu dhirayn ku sameynay 680 geed magaalada ama laamiga dheer magaalada iyo jidad kale oo ka mid ah magaalada in la furay wadooyin hore u xirnaa dayactir lagu sameeyay kuwa hore u jiray waxaa la furay jidad cusub oo magaalada banaankeeda ah iyo meesha loo yaqaan afurwayaale waxaan fulinay qorshe xildheerayaal iyo habitat ka tirsan ay u sameeyeen magaalada oo jid isku xiraya magaalada ku wareegaya jidkaas ruuxantii waa fulinay sidoo habaan u fulinay waxaan sameynay jidad cusub oo laga furay magaalada control galbeed marka looga baxo oo Tombaland loogu talagalay in barintan magaalada dhismin wuxuu wadooyin laga sii saaro waxaan dayactirnay 2 wado oo midna tahay wadada Meeraysane oo jey la saaray qarash badan ku baxay midna tahay wadadii hore ee Guureeye oo hore loo dayactiray oo dib loogu ceshay sanadkan waxaa la asteeyay wado bypass ah oo jidka sodonka halka uu ku dhamaado qabuuraha ka leexanaysa oo toga goynaysa oo laamiga kaga dhici doonta halkii hore controlka hore ahaan jirtay wadadaasna waa inoo astaysan tahay waana laga shaqeeyay asbuucan gudihiisa ilaalinta deegaanka waxaan ka qabanay shaqooyin badan oo muhiim ah waxaan qaadnay olole lagu ururinayo bacaha tirada badan ee deegaanka wasaqeeyay oo geedaha isku mara ugu yaraan 3,000 oo jawaan oo aanu lacag ku bixinay ayaanu gubnay 6 bilood gudahoodii waxaan la yiraahdaa la mamnuucay jaridda dhirta iyo cawska waxaa noo qabsoomay la yiraahdaa amaan qaybinay 300 oo jirigaan amiin joog oo loogu talagalay inay bedelaan jirigaamada caanaha lagu keeno caafimaad darrada sababay iyo waliba bacaha mararka qaar kood looga tacaanaha arrimaha bulshada haddaan u leexdo waxa ay isugu jirtaa arrimo tiro badan waxa hoos taga caafimaadka waxa hoos taga xaafadaha barashada la yiraahdaa sportiga dadka danyarta ama DBs-ka wax loo yaqaan arrimahaas oo dhammaan waxa laga qabtay haddaan ka hormar daryeelka dadka maatada waxa door muuqda aan ka qaadanay daryeelka maatada ku nool waxa meel aan isugu rarnay dadka barakacayaasha ah si ay u fududaato amnigooda iyo la yiraahdo wada shaqayntooda waxa si joogto ah loo ilaaliyo amnigooda waxa kor loo qaaday waxbarashada barakacayaasha waxaan u qaybinay lacago raashin iyo xirfado ay kula soo baxaan nolol maalmeedkooda waxa si rasmi ah loo diiwaangeliyay dadka barakacayaasha waxa loo qaybshay qalab nooca ay ku shaqeystaan sida qalabka nadaafadda kale waxa sidoo kale dadka danyarta oo host community la yiraahdo oo deegaanka ayagana dhinac Sacuudi barakacayaasha caawimada la siinayo oo ayaguna inta in la helay oo la siiyay dadkaas raashin guriyo lacago iyo barid xirfado iyo wixii la mid intaba dadka maatada ah inta aan sheegnay baan dhamaanba urgelinay ballanqaadyo badan oo hadda aan u haynaana runtii waa jiraan waxaana kelmado kooban goobta ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdi Xirse Cali Qarjab oo aad u soo dhaweeyay warbixinta waxqabadka ka sheekeynaysa golaha deegaanka 6 bilood oo la soo dhaafay xagga amniga hoos in loogu dhacaal rabaa wixii hoos loogu sii dhaco oo maalin walba maartay step la qaado marka arrimahaas waxaa la rabaa in gacan laga baarta dadweynaha laga siiyo maamulka jira in gacan laga siiyo iyo golaha deegaanka iyo maamulka degmada iyo hay'adaha amniga arrintaasna waa la rabaa kalfadhiga 13aadna
waynoo furan yahay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa kalfadhiga 14aad inuu noqdo waxqabadka halkan lagu soo bandhigay waxqabad ka fiican mid aynu ku soo bandhigno inuu noqdo ayaynu ilaahay ka rajaynaynaa innaguna aynu nabad ku gaarno haddii ilaahay idin ka dhigo aad iyo aad baan u mahadsantihiin kalfadhiguna waynoo furan yahay iyadoona inta uu socda fadhiga golaha deegaanka degmada Garowe looga hadli doono ajandayaal badan oo ku saabsan sidii laga yeeli lahaa waxqabadka 6 bilood ee soo socota iyo waliba ansixinta guddiga badbaadada deegaanka oo dhawaan uu asaasay duqa degmada Garowe Cabdicasiis Nuur Cilmi Koor cali Cabdicasiis warbaahinta dunida online magaalada Garowe.